kasoo sameeyno inana waxa idin ka codsanaynaa inaad muuqaalka like saartaan mahadsanidin Kajal markii u dambeysay waxa ay iyadu ka qayb gashay dhalashada islaanta sodohda u ah ee dhashay Ajay Devgan ee lagu magacaabo Veena Devgan haddaba waa markii u dambeysay oo ah adiga muddo hadda laga joogo 24 saacadood koor ayay ugu dabaaldegtay dhalashada islaanta sodohda u ah ee markaa dhashay wiilka iyadu qabto ee Ajay Devgan haddaba waxaa jira warar aad u fara badan oo atrishada ku gadaana oo xitaa oo rumor ah ama hadalheen ah kuwaas oo ay tabinayeen janalo kala duwan oo afka Hindiga ku baxa waxaana ay soo qaadanayeen sawirro ay ku sheegayaan in Kajal ay geeriyootay waxaan laga yaabaa baraha YouTube-ka in aad ka daawatay haddaba maxaa ka xaqiiqo ah Kajal sidaad ogtiin waxaanu tabinay inaga haddaanaana Cabdilaahi Qadar official muuqaal aan kaga waramayno in uu ku dhacay caabuqa coronavirus haddana waxaa jirtay maalmahaasi hadal heen ku aadanayd in xaaladeeda ay sare u kacday ilaa ugu dambeyn dadka qaar ay gaarsiiyeen in atrishadu xaalad critical ah ay gashay ayna markaa geeriyootay laguna hayo cisbitaal ka mid ah cisbitaalada oo aan weli la shaacilin arintaas waxaa haddana xoogaal sii noqon kara marka aan anagu tabinay ee ku aadanayd in coronavirus xaaladeeda ay aad u kacsaneyd markaas oo ahayd in atrishadu cisbitaal la dhigay iyadoo baaritaano ay ku socdeen laakiin ugu dambeyn marka cisbitaalka laftiisa lagu karantiilay oo loo diiday in qof halka uu soo galo tusaale waxa laga fogeeyay gabadheeda iyo saygeeda iyo wiilkeeda yarka ah taasoo barta Instagram-ka ay ku soo qortay inay u xiistay haddaba waxaa jira sawiraan dhanka cisbitaalka laga soo qaaday oo ku gadaana isla xanuunkaasi hadda Kajal xanuunka way ka bogsatay sidoo kalena waxaaba iyadu ka qayb gashay islaanta sodohda u ah ee Veena Devgan Kajal ayaa iyadu waxay ka mid tahay atrishooyinka loogu jeclaa barisamaadka waxaan lagu xusuustaa filimo kala duwan haddii matalan waa atrisho yacni the best actress ayay ku guuleysatay maxaa yeelay filmadeedii kuj hotahay filimo badan Bazigar filimo badan oo Shah Rukh Khan My Name is Khan filimo kabi qushi kabi gaham ma la soo koobi karo yacni qof maanta haddii cidideeda xitaa ay jabto yacni warbaahinta rasmiga ay qarin karaan ma ah dad badan oo saaxiibadeena oo nagu xiran oo daawadayaasheena ka mid ah soo weydiinayay marka waxyaabaha uga aamusanaa waxaa ka mid ah in waxyaabaha qaar aan suurtagal aynan ka soo hadalno laakiin ugu dambeyn dad baa weli ina daba jooga oo daawadayaasheena ka mid ah aadna way u mahadsan yihiin atrishadan ayaa weli waxa ay ku jirtaa daawade waqti aad u qurux badan oo nolosheeda ah mana garanayno annagu kulley dee xilliga marka ay dhiman doonto iyo xilliga marka ay soo dhaceysay laakiin Kajal way caafimaad qabtaa iyaduna caafimaadkeedu wuu u dhameystiran yahay marka u dambeysay waxay hambaliyo iyo bogaadin ay markaa sheegtay ee u dirtay Veena Devgan waliba eray hadda caan baxay oo warbaahintu ay adeegsanayso ayaa ka mid ah oo ay tiri Kajal waxaan guursaday Veena yacni Ajay Devgan anuu ma guursanin waxaan guursaday Veena Devgan sadooda hadii ay ku wanaagsan tahay bay tiri waxa uu gurigaaga uu noqonayaa guri markaasi aad barwaaqo u ah guri markaa degan waana sababtaas ay tiri waqtiga badan ee gurkeega uu u waaray ee ka dambeysay Veena Devgan oo ah hooyada dhashay Ajay Devgan oo iyadu markaa cimri ku jirta ama markaa tacbaan ah yacni aan ula jeedo qof waayeel ah cafar raalli ahada sidoo kalena waxa ay u dabaaldegaysay dhalashada duqda lafteeda dabaaldegaysay Twitter-ka ku soo qortay waa arki kartiin sidoo kalena Kajal barteeda Instagram-ka ayaad ka arki kartiin oo markaa atrishadu ay ku soo bandhigtay oo halkaas ay si faahfaahsan markaa ay uga warantay xaaladeeda ku aadan sadohdeeda oo iyadu markaa dhalasho dhiganaysay oo ay markaa hambalyo ballaaran u dirtay Kajal dhinaca kale waxa ay iyadu aad u jeceshahay gabadheeda Nayza Devgan oo sidoo kalena ay aad marka ugu weyn tahay marxalad ahaan marka loo eego atrishadan maxaa yeelay gabadhaas aad ay u jeceshahay haddaba wax ka jira malaha way caafimaad qabtaa hadalheentaasna waa been abuur sideed u aragtaa warbixinta qeybaha hoose ee nagula wadaag waa maasantahay daawade